warshadii ugu horeysay oo dib-u-meertayn ku samaynaysa isla markaana soo saaraysa qalab kala duwan oo ka samaysan balaastiga ayaa laga hirgeliyay bariga magaalada Hargeysa. munaasabada daahfurka warshada Tayo Plastic Factory oo ay ka qayb galeen madaxweyne ku-xigeenka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee Soomaaliland waxa ugu horeyn hadal ka jeediyay gudoomiyaha warshadaasi Axmed Maxamuud Cali oo sharaxaad ka bixiyay waxyaabaha kala duwan ee warshadani ay soo saarayso iyo waliba ujeedooyinkii ku dhaliyay in ganacsatadu ay warshadan yagleelaan. waxa lagu maalgeliyay lacag aad iyo aad u tiro badan waxay awood u leedahay inay soo saarto baahida wadankeena dhammaan item kasta oo ay soo saarto waxaad ka soo bilowdaa min baaldiyada gambadhada iyo dhammaan alaabadan soo saaray guryaha lagu isticmaalo iyo alaabta packaging warshada Tayo waxay damaanad qaadi kartaa in ay wadanka gaarsiiso isla markaana capacity ka badan wadanku intuu leeyahay ay soo saarto oo ay u iibgeyso wadamada jaarka. waxaan soo jeedinta koobaad u sameeynaa dhammaan macaamiishayada oo ah guri kasta oo ku yaala Hargeysa, guri kasta oo ku yaala Soomaaliland iyo guri kasta oo ku yaala mandaqada aanu deganahay oo isticmaala caaga waana guri kasta ayaan u jeedaa. waxaan u soo jeedinayaa in aan u sameeynay alaab aad iyo aad u qurxoon soo jiidasho ahaan Tayo ahaan aad iyo aad u wanaagsan waa sababtaan u qaadanay magaca Tayo. Cabdilaahi Jaamac oo isaguna ka mid ah saamilayda warshada Tayo ayaa isaguna sheegay in warshadani ay noqonayso midii ugu horeysay ee dib-u-meertayn ku samaynaysa agabka caaga ah oo markii hore duugiisu uu culays ku hayay deegaanka. warshadani waxyaabaha ay gaarka la tahay warshadaha qaarkood kaga duwan tahay waxa ka mid ah in ay tahay environmentkii iyo wanaajintiisa ka qayb qaadanayso maadaama ay leedahay sidii uu mas'uulkii ka hadlayay uu ka hadlay qayb recycling oo wixii burbura iyo wixii xumaada ee balaastiga ee suuqa iyo dibadda yaala inta halkan la keeno dib loo isticmaali karo. munaasabada waxa kale oo hadal ka jeediyay wasiirka horumarinta wadooyinka, wasiir ku-xigeenka horumarinta maaliyadda, maayirka magaalada Hargeysa, gudida warshadleyda, gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo marti kale oo ka soo qayb gashay munaasabada. aydiinkii xukuumaddu waxay canshuur dhaaf u bixisay 720 milyan oo dollar. 9 milyan oo ka mid ah canshuur dhaafka aanu bixinay wuxuu ahaa warshadleyda oo u dhigmaysa 330% canshuur dhaafka dawladdu bixisay. carwo ayaa laga furay caasimadda carwada wax walba xariir iyo dahab wax walba waa la soo dhigay. waxay ahayd miiskii ama maqsinkii raayay Tayadani ka furnay halka ugu kuyuuga dheer bay ahayd. waxa yaalayna waa agabkaas. taas waxay ku tusaysaa in ay tahay aasaasigii rasmiga ahaa warshadan. wasiirka ganacsiga Soomaaliland Maxamuud Sacad Saajin oo munaasabada hadal ka jeediyay waxa uu warshadleyda ugu baaqay in ay jabiso qiimaha isla markaana ay wax soo saarka wadanka gaarsiiso. waxaan waan ku dadaalaynaa waan eegaynaa waan idin la shaqaynaynaa waxa weeye wadanku horumar waan rabnaa laakiin se waxaan leenahay de waxa la sameeyaa inuu dalka ku filaado waa inuu qiimaha dadka macquul u noqdo. labadaas haday yimaadiin waan la shaqaynaynaa. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici oo munaasabada ugu dambeyn hadal ka jeediyay ayaa si weyn u hambalyeeyay ganacsatada maal gashatay warshadan oo uu ku tilmaamay mid muhiim ah oo wadanku u baahnaa. anaguna xukuumadahan waxaan diyaar u nahay waxa korbadeyntii awoodeenu gaadho waxaan rajaynaynaa in la dhaafin sanadkan insha Allah in la helo si loo helo tamar jaban loo helo. warshadan ayaa ku soo biiraysa tirada warshadaha Soomaaliland ka aasaasan oo la sheegay in muddooyinkii ugu dambeeyayba ay soo tarmayeen taasoo xukuumaduna ay tilmaantay inay ka qayb qaateen kor u kaca wax soo saarka gudaha oo muddooyinkii ugu dambeeyay la sheegay inuu kor u kacayay. Nuuruddin Culujoog, Universal TV, Hargeysa.